ورحمة الله وبركاته. قدوميها جبهة وطنية حرين توقادينية أدميرال محمد عمر عثمان حقيقة جود جبهة عبد الرحمن مادي حبناها جود فولين جبهة كلها دحية جبهة حبناها كلا دون جبهة كسر قيب كلا شركة جبهة كلا iyo xisbiyada ka soo qayb galay shirkan garaadada ugaasiyada salaadiinta madax dhaqameedyada kala duwan ee deegaanka Soomaalida ee ka yimid gobolada 12 ee deegaanka marti sharafta lagu soo casuumay shirkan waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharafi ah anoo matalaya magacayga iyo ka dawladda deegaanka Soomaalida inaan hadalla kooban ka soo jeediyo hortiina magaaladan Qabri Dahar oo maanta ay shirkoodii wada tashiga ku qabsanayaan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya taasan hadda ka hor dhici jirin laakiin ay keentay dadaal dheeraada iyo halgan ay geliyeen jabhadda مسؤولينتيدو sidii nabad loogu wada noolaan lahaa deegaankeena si adagna ay uga la shaqeeyeen maamulka hadda ka taliya deegaanka Soomaalida iyo xisbiga hogaamiye xisbiga dimuqraadiga Soomaalida waxaan leeyahay madashan maanta aan isugu nimidi waa madal nabadeed waa madal midnimo waa madal walaalnimo waa madal gacmaha la isqabsanayo halkan fara badan bay ONLF soo gashay sidii nabad loo gaari lahaa waana qadarinaynaa halkanka ay soo galeen halgamadii Soomaalidu ay soo galeysay halkan kamid ayuu ahaa dad fara badan baana sidii xuquuqda deegaanka Soomaalida dadka ku nool loo gaari lahaa ama dadka Soomaalida xuquuqdooda loo gaari lahaa naftooda ku waayay kuwa naftooda ku waayay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo kuwa dhaawacmay ee dhibaatooyin ka soo gaadheen Allah u booyaga dhayo kuwii iyagu laftoodu eheladoodii iyo qaraabadoodu wax ku noqdeen samir iyo iimaan Allah ka siiyo حلنا هالجمدة إستبجوج جاها بقولك إيه ديرات كسنة سعودي وحوها من أي نوجه هالجمين وده جرهان إن نسوق جارنو هر أي حقوق ذينا أي نقول كنا أولينا هاي أي نقول جارنو مدة يدي هنا ما هانن مد عدنا لجبر يو عدنا لجبر يا ما هانن ومد أي حق أولينا هاي أرنتنا بدا حكومة الديجان كصومالي دو أي كسر شقيسي يجبهدا ودني كحرين توجادينية دولة فدرال كون أي كما ضمبيستي هالشيء كأي صحيح ذي وحلا هاي وامره يحلقن كي أمضى وحنا رندونا هذا وحي كدم بيا وذا جر أهم بينه وحورات سندونا أن حقوق ذينا وحورات سنينا إننا قومدا أن لين كلاقات قادينين مددي كوبنايد اللحظة بلوضة ما تضوضة بلوضة هاي حكومة عصب الديجان كأرمسا أي تلده هيسي وحبها فرح بدن لا يسكت ضيدين قبضته وحكم لها مشروع الدبه شيسين تي ولا لين شعب كصومالي ده الديجان ككونور وحنا مريه كم إذا ما أنت إن نقوى فردنا هول كان قبر الدهر أو إنه كم إذا يسنا هاي لنعيك للدول iyadoo aynu ka faa'iideysanay isbedelka guud ee ka dhacay wadanka Itoobiya waxa leenahay midda iyadii ma ina ahayn mid si sahlan ku timid waa mid habeen iyo dharaar loo fikirayay loona dadaalayay loona dhaxayay loona maxaan ku rafaaday bay ahayd jabhadana waxaanu ka aragnay xubnaheeda mas'uuliyiinta aynu soo wada shaqaynaynay niman aad ugu dadaalaya sidii nabad loo qaadan lahaa hadda ka horna maamuladii hore ee deegaanka ka jiray ay caqabad ku ahaayeen sidii deegaanka nabad loogu soo dabaali lahaa
halaahay processkii aan soo galay ee nabadgeliyo inuu sii jiro oo uu dhammaystirmo oo saan rabnay uu ku dhammaystiro annaga ballan bay naga tahay boqolkiiba boqol baanu hortiina ka ballan qaadaynaa dawlad ahaan in processka ama geedi socodka nabadeed ee la bilaabay ee gabagabada maraya sida ugu quruxda badan la inuu ku dhamaado oo Soomaali ay mid noqoto ahaatana saan maanta u wada fadhino hoolkan hadafkanaga kama dambaystiina xukuumadaha waxa weeye wax ka sokeeya levelka Soomaalinimada inaan aqbalin deegaanka cirif ilaa ka cirif inaanu nahay Soomaali baan nahay Soomaali wax ka sokeeya waxba nooma aha waana lagu kala qaybini cid la qaybiyana waa la maamul cid la maamulana waa la gumaysani mudana yaaliya marwooyin aad waxaan ugu mahad celinayaa madaxda jabhadda oo maanta halkan ka ballan qaaday in ay jabhadda u bedelayaan xisbi kana qayb gali doonaan doorashooyinka soo socda kana mid noqon doonaan processka siyaasadeed ee deegaanka si aynu ugu wada raadino xuquuqdeedana si nabad ah taasaan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinayaa mar labaad jabhadda mas'uuliyiinteeda iyo xubnaheeda ballanqaadka halkan ay ka ballan qaadeen inay garab istaagayaan xukuumadda deegaanka ka arrimisa oo hiil iyo hooba la garab taagan yihiin oo ayna marna kaga hadhaynin goobaha ay maraysay ummadda uga adeegayso ballanqaadka ay sameeyeen hadda yaan uga mahad celinaynaa mudana yaaliya marwooyin hadalla fara badan oo meesha laga yiraahdo qiimo iima leh laakiin waxaan anagu ku soo gabagabaynaynaa hadalkanaga ama hadalka dawladda deegaanka Soomaalidu waa mid deegaanka Soomaalidu wuxuu u baahan yahay wada tashi walaalnimo gacmo isqabsasho iyo in horay looga socdo oo dib loo noqonin waxaan oran lahay ciddii iyadu dambi dawladda ummadda ka gashay shacabkeeda dawladda ka gashay ee maxkamada ay wax ku cadeynayaan ee processka sharciga la geynayo ciidan ka ahayn oo dhaniba waxa u furan inay processka nabadda soo gasho oo dawladda iyo jabhadda midoobay ee meel wada maraya inay la marto ayaa u furan say dooniba ha u dhacday xaalad weyn waxaan ka codsanayaa odayaal dhaqameedka deegaanka inay iyaga laftoodu ka tagaan oo kor uga kacaan kala qoqobka iyo qabiilada iyo sheegsheega hoose oo Soomaalinimo yimaadaan oo qoyskayga laga tagay iyo qoyskayga wax waayida ay gooni isaga dhigaan xuquuqdii Soomaalinimada la wada raadiyo tubteedana la qaado oo aan lagu mashquulin waxyaabo hoose oo Soomaalinimo ka hooseysa وعطي أنا سوتشيدينه مدح dhaqameedka deegaanka ee hortayda fadhiya iyo kuwa kale ee maqan ay suuragal ka tahay inay inaga daawadaan ama inaga maqlaan warbaahinta taasina waxa weeyaan waa codsi aan madax dhaqameedka iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed aan soo jeedinayno waxaan soo jeedin oo kale anoo magaca xukuumadda deegaanka Soomaalida ku hadlaya qabaa'ilka Soomaaliyeed waxa lagu yaqaanay dhaqan wanaagsan baa lagu yaqaanay oo Soomaalinimo lagu yaqaanay haddii ay wax damcaan ama ay wax tawdaan nidaam iyo process waxa jira dhaqameed oo lagu xalliyo waxay tabanayaan laakiin nidaam cunfi iyo dhibaato iyo maxaan ku burburina laguma aqoonin waxa mahmaha fara badan baa jira waxay oran jireen wiilkaaga curdeed haddii lagugu qabsado lagama dagaalamay waa laga doodaa bay oran jireen marka arintii noocii ahayd waa inay dhaqan inoo noqoto oo haddaad adu khalad dareento haddaad dareento in lagu yaraystay waxa habboon inaad ka doodo laakiin aad ka dirirto oo rabshad iyo dhibaato iyo khasaaro adu isgeliso walaalahana geliso ma ahaanin midda iyada ana inay qabaa'ilka iyo odayaashu ka waantoobaan
baan ka codsanaynaa u soo jeedinaynaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxaan iyagana ka rajaynaynaa processka aan isla bilownay ee wadno ee gabagabadiisii aynu wadno ee maantana ay ballan qaadeen inay sii dhammaystiraan sida ay tubta u saareen cagta eenu u wada saarnay inay ku dhammaystiraan oon dib looga soo noqonin taasaan iyagana ka rajaynaynaa hadalka inaan idinku badiyo ma jecli aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu